أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hogaamiyaha ururka xisbullah sheekh xasan nasrullah ayaa jimcihii shalay waxa uu jeediyey hadalkiisii ugu horreeyey tan iyo markii ay dib u bilaabmeen dagaalka israa'iil ay ka wado marinka khaza hadalka xogayaha guud ee xisbullah oo si weyn looga dhur sugayey ayaa waxa uu qaatay in ka badan saacad iyo bar taasi oo u badnayd digniin iyo hanjabaado uu u dirayo israa'iil maraykanka iyo waddamada reer galbeedka waxaana sidoo kale fariin uu hawada u mariyey madaxda waddamada muslimiinta ah iyo kuwa dunida carabta inkasta oo sida dad badani filayeen aan u iclaaminin dagaal toosa oo ururkiisu ay la geli doonaan israa'iil tabinteenna xilliga kan ayaa waxa aynu dul istaagi doonnaa dhowr qodob oo muhiim ah islamarkaana hortabin leh kuwaasi oo ku jiray hadalka sayid xasan nasrullah hogaamiyaha xarakada xisbullah weerarkii oktoobar nasrullah ayaa khudbadiisan dheer waxa uu ku iba furtay bogaadin uu u muujiyey kooxaha iska caabinta ee falastiiniyiinta kuwaasi oo muddo dheer dagaal hubaysan kala soo horjeeda israa'iil waxa aan bogaadinayaa shuhadadii dagaalka kaga dhimatay xamaas xisbullah iyo kooxaha kale ee jihaadka ah iyo sidoo kale dadka rayidka ah ee israa'iil ay ku laysay marinka khaza ayaa uu yidhi xasan nasrullah ayaa waxa uu ku tilmaamay weerarkii loo bixiyey duufaanta aqsa ee xamaas ay ku qaaday israa'iil 7 bishii lasoo dhaafay in aan iyaga iyo xisbigooda laga talagelinin waxa uu sheegay inuu ahaa weerar ee xamaas cashar xoogan ugu dhigtay nidaamka sahyuuniyadda iyo xulafooyinkooda washington iyo london ayaa uu yidhi waxuu sidoo kale mahadcelin u jeediyey ururada ciraaq iyo yeman ka dhisan kuwaasi oo ugu yeedhay in ay yihiin gacmaha xooggan iyo geesiyaasha islamarkaana waxay hadda qayb ka yihiin ayaa uu yidhi dagaalka barakaysan sida muuqata kooxaha hubaysan ee labadan dal ka dhisan iyo dagaalyahanadooda uu tilmaamay xasan nasrullah waxaa ku jira kooxda xuutiyiinta ee dalka yeman kuwaasi oo xulafo weyn la ah ururka xisbullah in dhawaalana bilaabay weeraro ka dhan ah israa'iil iyo maraykanka nuxurka khudbadiisan waxaa sidoo kale laga soo qaadan karaa in kooxdiisu ay iska fogaysay kulageerashada weerarkii loo bixiyey duufaanta aqsa taasi oo bishii lasoo dhaafay xamaas ay ku qaaday ciidamada israa'iil hogaamiyaha xisbullah ayaa waxa uu sheegay in aanu wax tala ah ku lahayn weerarka xamaas ay ku qaaday ciidamada yuhuudda islamarkaana aanay qayb ka ahayn diyaarinta shaxda dagaalka iyo qorshaha weerarka waxa uu sheegay in xogta aan lala wadaagin ururkiisa balse taasi aanay ahayn mid cadho gelinaysa maadaama ay ahayd qorshe dagaal oo sir ah xisbullah ma ku biiri doontaa dagaalka ka hor khudbadiisan sida weyn loo sugayey dadka intiisa badan waxa ay rajaynayeen in hadalka sayid xasan nasrullah uu noqon doono ku dhawaaqis dagaal maadaama uu ahaa hadalkii ugu horreeyey ee in muddaha uu jeediyo laakiin taasi ma dhicin nasrullah oo ka jawaabaya weydiinta ah in dagaalka ay qayb ka yihiin iyo in kale waxa uu sheegay in 8 bishii lasoo dhaafay ay xisbullah si toosa dagaalka ugu biirtay islamarkaana colaadda israa'iil ay kula jirto ay ku weyday tiro ku dhow 60 askari oo xisbullah ka tirsan نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين أول نحن دخلنا المعركة من 8 تشرين أول hadalkiisan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli ay kursi kacayso colaadda ka aloosan xuduudda dalka Lubnaan iyo Israa'iil toddobaadyadii la soo dhaafay xogayaha guud ee ururka xisbullah waxa uu sidoo kale tilmaamay in howlgallada xisbigiisu ay ku qasbeen ciidamada cadowga in ay ku ekaadaan xuduudda waxa uu sheegay in 60% ciidanka Israa'iil ay ku sugan yihiin sohdinta Lubnaan taasi oo uu ku sheegay inay qayb weyn ka tahay howlgalka bariga ee Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza in horumar la taaban karo uu sameyn waayo muddo bil ah oo dagaal ku socdo falanqaynta qodobkani ayaa dadka ka faalooda siyaasaddu waxay qabaan in xisbullah oo sidii la rabay aan dagaalka qayb uga noqonin ay la macno tahay in xilligani aanay diyaar u ahayn dagaal toos oo ay galaan ciidamadooda 100,000 ee wiil ka badan kuwaasi oo si xooga u tababaran tallaabadani ayaa waxaa loo arkaa in xisbullah ay dagaalka marinka Gaza ka istaagtay kaalin la mid ah midda Iiraan oo iyaduna dagaalkan aan weli ku beerin balse hore uga digtay colaad ballaaran oo saamaysa gobolka bariga dhexe oo dhan xisbullah waxa ay marar badan sheegtay in ujeedadooda ugu weyn ay tahay burburinta Israa'iil waa urur siyaasadeed haddana hubaysan oo awood xad dhaaf ah ku leh dalka Lubnaan haatan waa cabsida ugu weyn ee Israa'iil wajahayso cabsida laga qabo dagaal Israa'iil kaga furma sohdinta Lubnaan ayaa in dhawaale waxay ahayd mid kor u sii kacaysa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu hore u sheegay in jawaab adag ay ka bixin doonaan weerar kaga yimaada dhinaca Lubnaan oo hore ay ugu dagaalameen iyaga iyo xisbullah sanadkii 2006 hadalkiisu waxa uu salka ku hayay isku halayn ka dhalatay laba markab oo Mareykanku leeyahay kuwaasi oo nooca diyaaradaha xambaara ah isla markaana la geeyay bariga badda Mediterranean-ka inkasta oo Israa'iil xilligani aanay jeclayn dagaal kaga furma dhinaca waqooyi
haddana falanqeeyaashu waxa ay ku doodayaan in dagaalka xilligani uu sidoo kale dhib weyn ku geysan doono xisbullah qudheeda maadaama taageerada ay ka helayaan dhinaca dibadda la filayo in ay yaraato dhacdo kalena waa xasilooni darrada siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee haysata Lubnaan iyada oo in muddo ah aan haysanin dowlad quman oo shaqaysa taageerada Iiraan iyo ururada iska caabinta Sheekh Xasan Nasrallah ayaa intii uu ku guda jiray khudbadiisan uu jeediyay maalintii Jimcaha oo ka soo dib dhacday xilligii loo asteeyay waxa uu iska fogeeyay wax tababarro ciidan ah in ururkiisu uu ka helo dalka Iiraan waxa uu sheegay in laga soo bilaabo xilligii uu kacaanku ka dhashay dalka Iiraan ay Tehran taageero weyn siin jirtay kooxaha iska caabinta ee gobolka ka dhisan ha noqdaan kuwa ka dhisan dalka Lubnaan Falastiin iyo meelo kale balse waxa uu sheegay in go'aamada iyo qaraaradu ay yihiin kuwa u gaar ah ururkiisa Nasrallah iyo Mareykanka intii ay socotay khudbadda wadaadka hogaamiyaha ururka Xisbullah ayaa waxa cadho xoogan uu kala dul dhacay Mareykanka isagoo oo sheegay in Mareykanku uu mas'uul ka yahay waxa ka socda marinka Gaza taasi oo lagu gumaaday kumanaan qof oo kala bar ay caruur yihiin Mareykanku isaga ayaa si buuxda mas'uul uga ah dagaalka ka dhanka ah dadka barimageydada ah ayaa uu yiri Xasan Nasrallah baaqa Nasrallah ee wadamada Carbeed qaybta ugu dambaysa ee nuxurka hadalkiisa ayaa Xasan Nasrallah hogaamiyaha ururka Xisbullah waxa uu baaq u diray wadamada Carabta iyo kuwa dunida muslimka waxaana ugu baaqay in Israa'iil ay ka jaraan saliidda gaaska iyo cunnada waa hadal daba socday dalab Iiraan ay soo jeedisay toddobaadkii kan ka horeeyay ugu dambeyntiina inkastoo toddobaadyadii la soo dhaafay ay xuduudda dalka Lubnaan ka taagneyd xiisad colaadeed oo u dhaxaysa Israa'iil iyo Xisbullah haddana hadalka Xasan Nasrallah oo si weyn loo dhursugayay ayaa nuxurka hadalkiisa waxaan laga dhadhansan karin baaq dagaal u muuqda oo ka dhan ah Israa'iil marka laga reebo in kooxdiisu ay iska caabiso weerarada gardarrada ah ee kaga imanaya Israa'iil taasi oo mararka qaarkood dagaal ku riixi karta